ugu horeyn waxaan dhammaanteen inoogu hambalyeynaya gaarna idinku sii hambalyeynaya inaynu maanta u fadhino xafladda daafurka dhaqangalkii sharciga saxaafadda ee Soomaaliyeed 2017 ayaan xasuustaa taariikhda hore ee laga shaqeeyay iyo shaqooyinkii badnaa ee laga soo qabtay ka hor Allah u naxariistay injineer Yariisow markuu wasiirka warfaafinta ahaa sharcigani wuxuu ahaa shuruucdii ugu waaweynaayo golaha wasiirada oo ka shaqeynayay ee hor yimid ee dib u eegis iyo saxiitaan lagu sameynayay waxaanu ka yimid tabashooyinka qodob asaasi ah oo ay bahda saxaafaddu dareen ka qabtay inaynu ka wada shaqeyno la tashiyaynu sameynay shirar baynu ka galnay ama ha noqoto guddi hoosaadka golaha ay khusayso ama ha noqoto bahda saxaafadda iyo guddiyada loo saaray marka maanta waxaan dib u eegistii iyo saxitaankii la sameeyay kadib aan taaganahay golayaashii inuu maray madaxweynuhu saxeexay dhaqangelinaya haddii sharcigii oo aasaaskii ah aynu haysano maxaa inala gudboon ayaa tuu muhiimsan ay maanta tahay dhaqan ahaan haddaan Soomaali nahay islaam ahaan haddaan dad muslimiin nahay iyo sharci ahaan haddii qaanuunkii in kala hagaayay uu yaalo waa marka koowaad sheekhi aayadaha quraanka inoo akhriyay ayaa ka hadlay waajibka qofka muslimka ah saaran aayado quraan inoo akhriyay inoo fasiray ahadiis inoo akhriyay qulu qawlan sadida hadal wanaagsan hadiya jardaha waxa mardhow qofka markuu ay tiisa gaadho la isku qabanaya waxa weeyaan waxa labada carab labada ibood afka iyo meelihii kale oo xadiisku sidoo sheegayo lagu ciqaabi doono marka qof walba mas'uuliyad baa saaran dad islaam ah nahay مسؤولية الإسلام نمو صارن هرتا كحسابتم كلكم مسؤول وكلكم مسؤول عن رعيتي مركات شقة الصحف نمو جذريسو واحد كأكتا بريتم حال إلهي اللي هرتقي دوم تعالوا عندنا أبو حنين عندنا أبان كل هينين وحكلا هدي ورا أي مغلان عيال كلا تشتورنا يسوي باهيانو تدق يعني وحيابها الله ينقلنا دردارة أداء الجيل وربي مغلي ويباهيين سيفت الله وضع أفلوية صحافة دول الشيء جايو انتهى اللي بعتقي سنيسا أي عدي أي كسب سنيدو كي سنيسا أما قف هالنقطة أما قيس هالنقطة أو حيابك بعاجن إن أتكور بحصات كور رمته يعني أيات جتا مركا المهنة ديننا صحف النمو جذا إنسان ننا هاي ضد إسلام ما نكا أي نقوة هاي إنه بري محل لهرتك دون تا إلهي إن شقاء قبضتي وظروف تاعت كل شقين إنسان أدوكتهين صحافة دقالة بدن لقى مسمى نولن لقى مسمى ظروف تاعت ولبا حالة عن كتشرنو أوكتهين ونفتهر النمو صومالها نفتهر النمو دي حتى إفكينا نفتهر كنت هاي ظروف على كنور آخرنا حسابي كاتم بيسو لبدي بينانكو خساري إفكينا سمعة إيه وناك إيه إنا تسكو كريسو دوحة وناكسن شاكتو دالكاغا كبستو وناكا وهرمرتو آخرنا هذه إلهي كبحثتو حاجة وناكسن وغفكتو يعني ماركت الحساب تنكا قفل بكوري مركا انتا الشيخ نميه لكن علماء انتا كهر لسا انتا بدن وإنا هانسرون لها محاد صاحب بدا أما ولا لها كحسوسي لحيت مدى الله بعد وحويا حاجة دقنك دقنكينا الصوماليين وحيابك تقله أي هذه جري وحياة الجهل يا شرفت قفك وكل شيء هنا وجري ولورن جري هبل با قولك هذي أما ورسو تبي أما قبي أما ما هاي دبلنا ما قاعد يسمع هذه وناك ولنا عونك سنة بالشدة وذا شركة هذا نبدأ هذا ولا التنمية هذا أمني هذا كعانة هاي وكم اللي شيء كلها الواحد من واحد لقى يا بعدين حكى قالوا عن وصيفتي اللي وضع في الهيئة إنه لها أبوك الصومالي وكيل ورمان لو إحسان لقى متجو هداد فلي مرة قال سيد محمد عبد الله حسن أيها قبل قال لها وهداد حتى مارك هتلحتجي ويبري كمالي واحد لقى يا بعد إذا كنت لحتجي سينات صاحب كذا كوباد أتاعي مركا واحد لك له هذا يشير مركا مارك تقول تبينيسو أرينك هذا ليسو عدالة كفر أبو يران وهذا حكتي قد بنانيا هذانا هل عدالة فرو ولو يقول لي الدولتنا أنا لا عدالة فرو مالك يا ما هتنتي إن أنتي شقد على الإسلام تصدق حلو حوي الشرعي
sharcigu wuxuu ka ratibmaa xuquuq iyo xuduud hadday dastuurka tahay iyo hadday shuruucda kale tahay xaq aad leedahay ka muwaadin Soomaaliyeed ahaan iyo xaq aad leedahay ka suxufi ahaan iyo xuduud aanad ka gudbahaynin ama ka gudbi karin oo ay ka ratibmayaan isla xisaabtan xuquuqda muwaadin kastoo Soomaaliyeed waa leeyahay waajibna waa saaran yahay dalkiisa ka saaran yahay xuduudiina waxa kamid ah shaqada aad gudanayso maxaa ka ratibmaya haddii khalad ka dhaco anigu runtii sharci yaqaan ahaan iyo qof ahaan ra'yiyan ma fahmi karo sababta qof suxufi ah xeer ciqaabeed loogu ogaayo waxa ay tahay waayo ciqaabta iyo mihnada suxufinimo ee qofka suxufiga waa kala caagan yihiin in sharci ciqaabeed la mariyo taasi waxaan aqbali karna ma aha waase wax u baahan inaynu ka wada shaqeyno wadana meel marino fulintiisa sharcigani waa sharci madaniya xirfad yaqaanka mas'uuliyadiisa madanimo iyo haddii ay ka ratibmaan gaf uu galay anshax marintiisii iyo gudiyadii ku shaqo lahaa inay ka wada shaqeeyaan sida loo anshax marinayo inay ka shaqeeyaan ku saabsan weyn laakiin faldambiyeedka kale ee kaa dhici kare qoyskaaga xataa aad ka geysan kartid ilaan xaaskaaga ama aabbaha ama walaalkaa faldambiyeed baa idin dhex mari karo adiga kaa yimid taa mas-uuliyadda dambiya ka ratibanta ma aha mid lagula galgalan karo qofku waa suxufi marka taa horta aan laba u kala saarno shakhsiyan hadday gacani kaa dhacdo ama aad dembi geysato sharci gaara buu leeyahay saxaafadda iyo xirfadaada haddaad ku shaqaynayso laakiin gaf ka yimaado adigoo etigiskii iyo akhlaaqiyaadkii hadday islaamkii iyo soomaalinimo iyo mas-uuliyaddii sharaftaadii dhowraya wixii khalad ee ka dhacaana waddo kale ay leedahay oo sharcigiisii maanta aynu halkan ugu dabaaldegayno daahfurkiisii iyo dhaqangelkiisii sidaynu uga wada shaqayn lahayd waa guul weyn in maanta aynu marayno 11 qodob oo aad cabasho ka soo jeediseen in dawladdani 11kiiba bedeshay oo la saxay oo sidii idinku aad u rabteen in looga shaqeeyay loona bedelay sharciguna wuu koraa wuu dhismaa maalinba meel buu ka sii amba qaadaa bulshadu siday u koraysay dynamic ku tahay oo noloshu isu bedelayso taasi waxay tusaysaa dawladda federaalka Soomaaliya hadda jirta xukuumadda dawladda nabad iyo nolol waa saaxiibka suxufiga Soomaaliyeed taa waxa marxaati nooga idinka waxay marxaati nooga sharcigan aynu u dabaaldegayno waxay marxaati nooga 11 qodob oo aad tabasho ka jeediseen inaynu la tashiyeen gelinay in sharcigani gobolada iyo dalka oo dhan la tashi soo maray caasimada dhowr goor oo anigu goobjoogan ka ahaa la tashi soo maray ama wasiirkeedii hore ha ahaato ama wasiir daahir galaha noqoto ama wasiir maareeyaha noqoto intaba la tashiyo iyo rog iyo faaqidaad aynu soo marnay marka waxay taasi xaqiijisay inaanu nahay saaxiibka suxufiga Soomaaliyeed taana waxaan rabaa inaad noo qirtaan taariikhdii la weys qoraysaa soo maaha waa mahadsantihiin arrinta kale ee aan rabo inaan ka hadla waxa weeye inaynu ka wada shaqeyno hadday tabashooyin kala jiraan guddida ka dhaqaajiseen ta anshax marinta ama maaragtay sixitaanka khaladka dhaca ayaad ka tawaajiseen waxa kale oo ka dhawaajiseen sharcigu haddii meel ay jiri karaan aan isla akhrino dabadeedna soo jeedin ma haydinka yimaadaan aan ka wada shaqeyno muddada nooga hadhay waxaan diyaar u nahay wax alla wixii sharciga saxaafadaynu maanta u dabaaldegayno hirgelintiisa galdaloolo oo aad dareensan tihiin in loo baahan tahay in la saxo inaanu idin kala shaqeyno marka idinku wada fadhiista soo la fagura bulshada rayida baa tihiin suxufiyiin baa tihiin aqoon-yahanna baa tihiin looyaradiina kaashada annaga kaalmo na weydiista waa ka wada shaqeynaa diyaar baan u nahay in aynu isla saxno gacmaha aan wada qabsano waxyaabaha inaga hor imanayo oo ummad ahaan iyo qaran ahaan inagoo wada jir ah aan ka wada tallaabsano waxaan aaminsanahay suxufiga Soomaaliyeed anigu shakhsiyan qabaa inuu ka mid yahay suxufiyiinta adduunka meelo badan oo ka mid ah ugu xorriyadda badan bal eega waddamadeen jaarkeena bal eega Afrikada ama Afrika bal eega dunida Carabta bal eega duni kale oo saddexaad ama kuwa qaarkood bal la sheegay inay horumareen iyo sida suxufiga loola dhaqmo marka waxay tusaysaa Soomaaliya suxufigu inuu kaga jiro meelaha ugu wanaagsan ee xorriyad uu ku shaqeeyo ay u leeyahay xorriyaddu xuduud bay leedahay dunida sideedaba ma jirto xorriyad mutlaq ah oo daba furan oo wax ku xakameeya ayna jirin
ama sharcigii ilaahay baa ku xakameynaya oo lagula xisaabtamaya ama sharcigii dalkaasi dhigtay ama dhaqankii ummadda ku xakameynaya marka waxayna xakameynaya had iyo jeer bay jiraan laakiin inagu aynu nahay kuwa ugu wanaagsan ee meel fiican xorriyadda suxufiga iyo saxaafadda Soomaaliyeed soo gaarsiiyay aan ogaano siino saxno oo si xoojino maxaynu tabaynaa haddaba oo idinla tabayaa idinkuna ay tahay inaynu ka shaqeyno koow hadday galdaloolin jiraan sharciga inaynu saxno laba inaynu dhaamiyaynu u baahannahay ama sharciina wax ka xusaya Freedom of Information Act ama access to information in war la helo inaad dawladda war ka heli kartid aniga inta xafiiskayga la soo xidhiidho aad tiraahdid xogtaas aan u baahanahay inaan wax ka ogaado wasaaradaha aad saas oo kale maareeya aad la soo hadli kartid iyo wasaaradaha kale baarlamaanka aad oran kartaan xogtaas aan rabnaa dawladda dhinacyadeeda kala duwan aad oran kartaan xogtaas aan rabnaa sharcigaana haddii aad dareentaan in loo baahan yahay waa ka wada shaqeynayna diyaar baan u nahay inaynu halkaana gaadhno Soomaalidu waxay tiraahdaa Roma maalin kaliya laguma dhisin baynu mahmaha oo aan filayo luqadda wadanka inay ka soo jeedo maanta meel fiican baynu maraynaa inaynu meel ka sii wanaagsan gaadhnana wada jir baynu ku gaari karnaa hadeer professor Dalxa wuxuu ka dhawaajiyay doorashooyinka inagu soo aadanayo imankana aynu idinka laga yaabaa maanta had iyo jeer ha eegin cidda maanta fadhideen wax idinka diidan idinka qudhiinu halka uu maareeyo fadhiyo bari inaad fadhiisataan ama aan anigu fadhiyo ama xildhibaanada ama dawladda qaybaheeda kale marka dawladana u tura oo la shaqeeya barina inaad tacab gashataan ka shaqeeya madaxdii maanta iyo kuwii bariba inaad tihiin aan ka wada shaqeyno dalkeenana aan wada shaqeyno gabagabadii si rasmi ah ayaa inoogu daahfuran yahay dhaqangalka maaragtay sharcigan iyo meelmarintiisu iyo daahfurka xafiiska communicationka ee dawladda xafiiska xeerlaalinta dawladdu waxay u sameysay dambiyadii dhacay ee hore in laga shaqeeyo la baaro oo loo ogaado xeerlaalintu oo xeerlaaliye gaari ururiyo 15 sanadood ee u dambeeyay maxaa dhacay xadgudubka dhacay muxuu yahay sida waxbaynu ka baran karnaa oo garan taariikhdu galaya idinka ku dhiino suxufiyiintii saaxiibadiina ahaa ama walaalihiina ahaa sidii loola dhaqmay si wax looga barto bari ka maalina looga eexdo taana aan ka wada shaqeyno waxaan qabaa sida aad uga guuleysan kartaan cid walba waa in ummadana dhaxaado ahaataan sida dawladdu saaxiibkiisii koowaad ay u tihiin aad noqotaan saaxiibka dawladda saxaafaddu waa awoodda afraad waxaan qabaa inay tahay awoodda koowaad ee dawladnimada iyo qaran dhiska Soomaaliyeed waa mahadsantihiin assalaamu calaykum warahmatullahi